بسم الله الرحمن الرحيم حسن waxay u eg tahay in go'aan taariikhi ah oo masiiri ah oo madaxweynuhu gaaray in dalka la badbaadiyo kadib markii gogoshiisii la aqbali waayey gogoshii maamuladana ay ku soo dhamaatay in xukuumadda iyo maamulada ay wada hadlaan marka waa go'aan taariikhi ah oo masiiri ah oo gaaray waa geesinimo loo baahnaa waana arrin ay tahay in la soo dhaweeyo ilaahay idinkiina heshiis siyaasadeed laga gaaro aadna loo wada hadlo magaalada dhuusamareeb hadda waxaa jooga madaxdii maamul goboleedyada oo shir dhowaan ugu soo dhammaaday ra-iisul wasaarihiina waa uu tegey waxaynu ognahay in madaxda maamul goboleedyadu ay soo saareen warmurtiyeed dhigayay in doorasho dadban la aado oo xilligan aanay suurtagal ahayn doorasho hal qof iyo hal cod ah ma kula tahay marka arrimahaasi marka laga wada hadlo in go'aan wada jira laga gaari karo aan wada hadalno soomaalida waxay tiraahdaa waa aan heshiino mar haddii dadku uu go'aansado inuu wada hadlo waxaan aaminsanahay in wax kasta laga wada hadli karo wuxuu qur'aan ma ahan aan la bedeli karin oo munazala oo ilaahay kalaamkiisii ah mar haddii ay taagan tahay in masiirkii dalka laga wada tashado dalka in la badbaadiyo xukuumaddana ay ka seexatay wax allaali wixii mas-uuliyadii hor yaallay maamuladuna ay aayadda qayb ka ahaayeen xilliga dhimanna aan wada ognahay inuu aad u yar yahay waxaad moodaa in haddii hoos loo wada fadhiisto oo uu rabitaan jiro wix allaaliya wixii la samayn lahaa meeshii loo mari lahaana la heli karo hal culays unbaa iman kara mar haddii xaqii dastuuriga ah ee asaasiga ah ee qofka soomaaliga uu lahaa aan la meel marin karin waxaad moodaa in kuwa matala in la xurmeeyo ay muhiim tahay oo wax kastoo lagu soo heshiiyo oo laga soo gorgorsamo ay tahay in labada aqal la soo mariyo hanaankaas dambe inuu culays ka yimaado maayo waxaad moodaa in haddii la wada fadhiisto heshiis siyaasadeed la gaari karo waayahay markaynu ka soo tagno arrimaha doorashada waxaynu la soconnaa in qaar ka mida madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe khilaaf uu ka dhexeeyo marka arrimahaasi ma kula tahay in laga hadli doono haddii laga hadlana xal laga gaari doono saddex arrimooda aada muhiim u ah oo yaala waa midoo in xaalka guud oo dalka la iska warsado arrinta labaad waa arrinta amniga ah saddexaadna waa ta doorashada khasab maha in wax kastoo la isugu yimaado laga wada heshiiyo laakiin waxaa khasaba in la wada hadlo la doodo isuguna tanasulo lianna marka la wada hadlayo si gaara doodaha iyo gorgortanka siyaasadeed marka la galo waxaa lagu yaqaanaa dadku inay jirto ka go'naansho iyo rabitaan siyaasadeed sidaas daraaddeedna waxaa imaanaysa in qofku waxna uu qaato waxna uu bixiyo marka ma noqon doonto in xukuumadda liiska ay wadato oo dhan la wada sii daayo iyo in maamulada liiska ay wataan oo dhan la wada sii daayo laakiin waxay noqon doontaa in si saani ah oo xalaala inta loo gorgortamo waxna la isu sii daayo waxna la kala qaato sidaasna heshiis siyaasadeed oo labada aqal la geyn karo lana ansixin karo uu ka soo baxo dalkana lagu badbaadiyo ugu dambayntii markaad eegto kala aragti duwanaanta hanaanka doorashada iyo guud ahaan arrimaha ku xeeran doorashada maxaa laga filan karaad is leedahay magaalada dhuusamareeb oo hadda ay joogaan dhammaan mas-uuliyiintii soomaalida xasan sidaan dhowr jeer kusoo celceliyey waxaa ii muuqata teendadii iyo tabliiqii iyo yaa diyaar ah waxaad moodaa in ay suurtogeli weyday ilaa 12 sano iyo siyaado in doorasho qof iyo coda laga wada shaqeeyo rabitaankii siyaasadeed iyo go'naanshihii xukuumaddan iyo labadii ka horreysayna sidaas daraaddeed waxay noqonaysaa inta hoos loo wada hadla gacmo geli jiro hoos ba loo wada dhaqayo noocuun doorasho oo 2016 iyo siyaado ah oo ku celisa in la samayn doono qaabka ugu habboonna loogu dareeri doono doorashooyinka dalka lagana yaabo in 6 bilood iyo wax lamid oo daah farsamaa ilaa ugu badnaan 9 inay qaadato sidaasna loogu heshiiyo noocun doorasho oo dalka uu ugu baxo sidaasna markaas labada aqal lagu geeyo laguna ansixiyo insha allah